shirarkoodii hore marka la fiiriyo iyo hab dhaqanka ayba ku dhismeen maamul goboleedadu waxaad moodaa Soomaalidu inay iska indhatirayso xaqiiqada dhabta waxaanay waxay ahayd caqabad ummadda Soomaaliyeed loo dhigay waxa sameeyay oo ka tagay ahraabigii Tigreega Malas dowladii hore Itoobiya Ibrahim oo nin la yiraahdo ayaa barnaamijkan lahaa federalismka maamul goboleedka waxaan inkastoo dowladda waaweyn oo shay ay ku daarnaayeen haddana waxaad moodaa sidii loo dhisay iyadoo xataa maamulkii Tigreegu meesha ka baxay haddana waxaad moodaa in ay maaragtay sidii loo dhisay haddana ku shaqeynayaan haddana dib wax yar ku celiyo markii ay isku dhaceen dowladii xukuumadii madaxweynaha ka ah Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda maanta dowladda jirta ka horeysay iyo Puntland marka isku dhacday waxa on behalf of usaxiixay Cabdiwali Gaas iyo Puntland wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa usaxiixay oo ka ahaa mas'uul oo isku keenay dowladda sidoo kale Galmudug iyo marka isku dhacaan iyo Puntland Ethiopiaanka ayaa heshiisiyay iyadoo dowladda dhexe Soomaaliyeed joogto marka aad fiiriso intaasoo jeer ayay ka baxeen Puntland ay tiri waa ka baxayna dowladda dhexe Jubbaland waxaad ogtahay in ay hadda waxa weeye intaasoo jeer taliyaasha ciidanka oo la celiyay ay waxa weeye ay dib u celiyeen oo diideen dowlad waa caqabad loo sameeyay ummadda Soomaaliyeed qarannimada Soomaaliyeed ayay caqabad ku tahay dowladda Soomaaliyeed maanta shacabka Soomaaliyeedna mid la gudboon waxay tahay maadaama uu dastuurkii ku meel gaar yahay waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed aftida laga qaado inay ku diidaan maamul goboleedada waxaad u jeedaa yani oo aragtaa ciidankii yani xataa waaba la sii kala daran yahay marka laga soo hadla Axmed Madoobe oo kale hadda Puntland oo kale 318 kun oo ciidanka federaalka lagu talagalay 3 kun way badireen Hirshabeelle iyo marka la yiraahdo koonfur galbeed iyo marka la yiraahdo Galmudug Chino ciidanka waxa loo diraa ama ha noqoto dowladda dhexe ayaa looga taliyayo ciidankooda saraakiisha ama militariga ha noqoto ama nabad sugidda ha noqotee waxa maamulo oo loo diraa federalismka laakiin waxa la socotaa Axmed Madoobe yani waxa weeye hadda taliyay ciidanka militariga loo diray baar dheer jooga gadi jooga kii nabad sugidda loo diray sidoo kale waa soo celiyay waxa la socotaa shirkii weynaa oo hadda loogu yeeray oo Brussels markuu diiday ergey cadaan ah ajaanib ayaa soo bariday oo geyso oo ka yeeray Axmed Madoobe waa tagay wuxuu waxa weeye isku dayay inuu ilay iyo maamulkii Tigreega uu waxa weeye kala dab qaado ma aha fikirka Soomaalinimada kuma shaqeynayo qarannimada Soomaaliyeed baa ka soo horjeeda waa nin asmacaan waa nin bahalkeed dalku u tababaran sida maaragta wax loo qiyam waana nin historically aad loo yaqaan masdor aan ka dhaxkale inkastoo arrimahaas oo dhan aynan cadeyno hayna hadana khilaafku weyn maanta ka dhex jira Jubbaland waxaan cadeyno hayn in ay markii midowga maxaakiimta ragna waxa weeye waa la dilay ragna waa la qaaday oo diyaarada lagu qaaday ragna dhulka la martiyay Itoobiya inuu inta ay waday la boorgaraamiyay la soo celiyay si toosana oo ugu shaqeeyo kiilka sanaad intaasoo milyan laga siin jiray Jubbaland percentage-na uu kulaha gabre uu kulaha dekada Kismaayo miyaan cadeyno hayn adigu Axmed Madoobe in lala tashto iska dhaafay wax walba loo sameeyay waa la bariyay waa loo yimid waa waxa uu asagu u sheegay anigana waxaan kamid ahaa fatahaadii biyaha markii ay daadadkii beledweyne iyo baar dheere iyo qaaday ra'iisul wasaare ku xigeenka wafdi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo diray oo culimaa u diin leh oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan ayuu yiri ma la tegi karo dhowr bari ayaa loo baaqdo la bariyo la war waxana waa samafal Axmedow maanta shirka uu u yeeranayaana waxay tahay wuxuu og yahay duulaan cad oo lagu talagalay oo siyaasadan intan waa ka weyntahay la raba in lagu soo nooleeyo Tigreegi waxa weeye maqale xiriir kala wada dhaxeeya oo waxa weeye wuxuu rabaa in aysan ka dhicin nabadda geeska Afrika maanta ka curatay inaysan ka dhicin buu rabaa waa majaxaabin aad u jeedo dawladdu si toos ah oo aan haba yaraatay aan qarsoodinayn buu kaga soo horjeestay maamul goboleedadana wuxuu ugu yeertay sidii maalintii Axmed Xaaf markii Galmudug
iyo dawladda isku dhaxsanaayeen habkii ay ku badbaadiyeen oo kale inuu maanta iskugu badbaadiyo oo awaamiirtiisa uu ka soo horkeeno oo ka soo horjeediyo maamul goboleedada uu dawladda dhexe ka soo horjeediyo oo uu fikirka haraadiga tigreega ee maqalle ee gabre oo waxa weeye gabaabsiga ayuu wuxuu rabaa inuu ku soo nooleeyo sidii maxamed cabdi ilayba uu ugu aaday jigjiga oo ilaa ardisababa uu soo noqdo oo uu abi axmed ugala soo hadlayay wuxuu rabaa inaan qaran Soomaaliyeed dhismin wuxuu rabaa inaan haba yaraatee haykalkii iyo qiimihii iyo sharaftii Soomaaliyeed aysan soo noqon wuxuu ku takrifalaa dekada wuxuu ku takrifalaa xushii illegalkaad wuxuu sameeyaa ganacsi illegal waxay caqabad ku tahay not only him maamul goboleedadu waxay caqabad ku yihiin geedi socodka qarannimada Soomaaliyeed waana u jeedaa shacabka Soomaaliyeed maadaama aan dastuurkii dhamaystirnayn oo waxa weeye aan dib u heshiisiin aysan dhicin waxa weeye waa in ay dhahaan ay ka soo horjeestaan oo ay diidaan oo waxa weeye waqtasmu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum waxaan ku weynay kuma helayno waa maamul goboleedo beela ku dhisan oo ST iyo SSDF iyo USC oo kala ah oo haba yaraatee wax wanaaga aan shiina u keenan qarannimada Soomaaliyeed waa qoys waxa weeye ma aha waxani wax la koobi karo iska dhaaf qoys hatta qabiil ahaan ayaan raalli aysan uga ahayn Axmed Madoobe la abtirsada inuu maanta meesha sii joogo waana siyaasad waqtigoodii oo dhamaaday ay rabaan doorashadii galmudug baa soo dhow doorashadii Puntland baa soo dhow doorashadii waxa soo dhow koonfur galbeed doorashadii waxa soo dhow Axmed Madoobe giddigood waa boor isku qarin la rabo inta dawladda iyo shacabka laga horkeeno in lagu badbaado dagaalka tukarraq waxa weeye 99 million times waxa weeye Cabdiwali wuxuu wada inuu ku saangato كانوا واحد دولة واري معنا واحد بقصة وحين هيا إنه يراد دولة فرقلين وجاهزة وحوي نندال قاضي حنبئ عسكرية وحاسو هبيرات أيضاً الدولة اللي وجدها هبيرات كمجر مع عبد الله فرماجو يا حكومة ما أنت شرته وحوي reconciliation ودولة عرب عن الكلام وحوي ولالك تكون نوجس ودولة مصلحة ميل والبوفر السنة ونمان نبدي الدولة يا شعب كصومالي هبيرات وحوي شيء كمجر أيضا وحبك كمجرته هدي أيسن ومحمد عبد الله فرماجو كسر جدو مركنيك قال كاهو أنت أتجي بريء أسبب الدين شيء جنايا أنا هو أجنو كبين شيء جيو أي شركة كقيب جليه سيدا سقراية باقي سوماي من أتجا ما حفظنا وكايكو ما لحظة بقى أتكتي ما سوى قال كرتين بيري وحلا لو الدولة كسر أنا كان كل شيء هو يومنتيريان كي بين آدم لما دي بوجي ده أو يرديارات كان طالبا كل فريق وقت جالسان كشري علماء الدين كصوماليات بكشري ورجال بالشدة كودا كشري ورئيس الوزراء كحجان كانوا جامنة وحلوه ودي دتك بقية تلوين إيو وحلوه ودي دوين باللوه ودي مركب وهي هيومنتيريان كي لحسن أيوتشوج أحمد مدوبي ما أنت محا شينا محله وحوي هذا وحوي لحسن وكل سوى ما أنت كل سيء أنا أستغرب قدام ميتي ما حفظ لكو جارحان كو دولة قبل أنا رأي شرب بان بهرو قبطين وربوتي كسو صار إن طبعا وحي عن مسينتي لو هذا يميس لسكو إيمانه يو عن لك قمين ووحبا بحي أكسن ووضحوا معها الأمسية مركا مسألة هاي أدوها بونتا إن دولة فدرالك الصومالية أي تحقليسو أراكتيدة كسو بحيا شركة ما أحد دولة قبل هبيرات سيدا أدرو سقط الشيء ولا إن الدولة تاسع ما يصير تستورك حوش جبريل وزير كيجو دجمول مامل قبلات كستأي الدولة والبوتجي أنت وحلا قرعنا يا أيها عيدا كي قرنك سداد يطبعا كي يكون صدق يكون أوريسي عبدالله قاس وهو كاري أنت كان مكين أنت أيها لو قرعنا حقيقة واحد ماشى ولا لكوتشرا أو أربعة إن أنا أذيك يا شعب كأنا دين شو خاصية أحمد مدوبي نيك اللي يرادو وحوي أمضى وحيكون قدام يسا وقتي وحوي النبي سليمان أيا شمبر باهتمدو بل بيدو عديني بيكعبتو مركاسا وحي على التنمات دالا يا رب يرشي بل يكعب يسوي كذا واحد يستري دائر تاي وحكو ينكو حيالين مركاسا وحي قلت من مركي دان يرد تكتارين أو يجيب أو كان وحبكو قمصة وين يستري قرك وين أو آثارت الدين تكم وقته هل كي بيبيه عب يستري أضاقي نجح بنت كتورو إلى كريد نبي سليمان وحول بإلهي وسقراء وحولها هذا شمبركي وأفيقان شمبركي ودعوتي والله يا راضي محافظ الشالير إيش على جريدة ما واحد تري إيش وحبا يمدي بني جار كان أيو يقصر يا هيبدأ إسلام جاه لقى حيره مركب وحن أشجعنا شعب كصوماليا دي أديكوا أفكر معاني يا هيبدأ آثار الدين تا وحنولنا هاي
arrin badane oogada lala oo caabuq talinaya caqli caafimaad lagu hubo oo caqli caafimaad lagu hubo orod yar baa dhaama oo reerka lagu aaminay oo agabaryeynaya agoontii caruuraha ninkii ururiyaa dhaama ugub aan asluub iyo lahayn xir maamuus leh haba agab la'aatee carmada edab labaa dhaanta eebada intuu kugu mudo araxda kaa toogto af macaane kula ooyayo uurka kuu dabaya abees micida kugu aasay ood aragtaybaa dhaama inankaan amaalkooda gudin aabba iyo hooyo adoogi la naar inan yaroo idif labaa dhaanta idif mantaqan waa dhoorka ergamida islaam wada jiroo kala adeegaya alla ilaahay colaad qaawan oo la og yaha dhaanta isagoo ammaantaada wada uuna kuu qodaya laba afla kuu imaanayood ehelna moodayso ula jeedo gaarana wato adag ku aargoosan aqoon darane iimaan leh oo la og yaha dhaanta afka macaan ee axmed madoobe waxaa ka fiican in haba yaraatee laba qodob maamulka waqtiyadoodu dhacayana in lagu bedelo dad Soomaali ah dastuurkana laga tirtiro federalismka iyo waxaan kala qoqobka ee ay gaalada noo dhigeen ayaan adiga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo inta dhageysanaysa kula talinaya aad iyo aadna waana dhamaatay waqtigii afka macaana Axmed Madoobe